madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdisamed Cali Shire ayaa maanta dhagax dhigay dhismo cusub ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada Puntland. Wasiirka waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa ugu horreyn ka warbixiyay dhulkan wasaaradda loo dhagax dhigayo iyo baahida ay u qabeen. Wasiirka waxbarashada ayaa dawladda hoose magaalada Garowe ku amaanay gacantii ay ka geysatay inay wasaaraddu yeelato dhulkan maanta loo dhagax dhigay. dhismo looga dhisi doono dheerkii baan wareejin doonaa waa dhul 120 waa meeshii ugu quruxda badneed magaalada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda hoose oo iyaduna booska kan nagala shaqeysay inaanu helo. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdisamed Cali Shire oo munaasabadan ka hadlayay ayaa sheegay in wasaaradaha Puntland aysan ku filneen xafiisyadii ay hore ugu shaqeynayeen, sidaas darteedna loo baahday in hay'adaha Puntland ay dhistaan dhismayaal cusub oo ka ballaaran kuwii hore ay ugu shaqeynayeen. dawladihii hore uma suurtoobin inay deegaamada ku tallaabsato, hase ahaatee dawladda maanta dalka talisaa waxay ku guulaysatay inay wasaarado badan magaalada ka soo saarto, keentana deegaanakan hadda aynu joogno oo ay ka muuqdaan wasaarado badan in xarumo looga dhisay, iyadoo aynu ku tala jirno dhammaan deegaanakan inuu noqdo deegaan dawladeed, halkaana ay noqdo zoona ay dawladdu iska leedahay. madaxweyne ku-xigeenka Cabdisamed Cali Shire ayaa dadka Soomaaliyeed uga tacsiiyay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Awaan Cabdullaahi Macalin Axmed Dhoodaan oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Harar ee dalka Itoobiya. aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha dawladda Puntland, magaca golayaasha dawladda iyo magaca shacbi weynaha reer Puntlandba waxaan jeclahay inaan tacsi u diro madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliyeed, shacbi weynaha dawladda deegaanka Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inta af Soomaaliga ku hadasha, taasoo aan uga tacsiideynayo geeridii ku timi Awaan Dhoodaan oo runtii naxdin ballaaran nagu reebtay. ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariista janno ka waraabiyo ubadkiisii iyo ehelkiisii iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanna inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. dhagaxdhigan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli roobkii guga ay si ballaaran uga da'ayaan deegaanada Puntland. xalay ilaa iyo maantana magaalada Garowe iyo nawaaxigeeda waxaa ka da'ay roobab badan oo aad loogu diirsaday, waxaana la arkayay biyo xoog leh oo maraya toga magaalada Garowe. Cali Ciise Nuur, Somalisat, Garowe.